ahayd isku timidaalkan waxaan isugu imanay shirkan jaraa'id aan u qabanay waxa weeyaan arrintaa xildhibaanku ka warramay ka soo curatay beelaha iyaga laa u sheego suldaanka oo xildhibaanka aad u faahfaahiyay walba runta laga yaabo horta arrintaasi waxay mid suldaan ku hadlay jaran ku hadlin siyaasi ku hadlin suldaan ka mid ah suldaanada beelaha Samaroon suldaankii wajibiyonis inkastoo ku hadlayay afka Samaroon haddana waxaa suldaan beelaha Jibroonis ay doorteen suldaan wuxuu yidhina waa salaadiintu kolka laga hadlo arrintooda waa ku soo celceliya hadday Hargeysa yimaadeen oo codsi sameeyaan hadday oo barri tagaan hadday halkan shir ku qabtaan salaadiinta arrinta soo celiso oo kamid yahay oo gool kana baxsano erey baa ka soo baxay keli hataysan oo uu yiri nin baa la yiri oo sida xildhibaanku warray beeshan waxay beeshii dawladda gastay nabadgelyada inta maalin qolay inta 20 sanadood wax isirdiya ka dhigay hadal shalay ka soo baxay kuba gadno in taasoo ciidana la keeno laguna bajay carruurta laguna cabsi geliyo dareera golayaal baa jira goorta waxaa u qaybsan baa jira salaadiin baa jirta ka mid yahay culimo jirta ciidan ma joogin meesha gildii odayadii goorteedii baa tagay suldaanadii had ka mid ahay ereygan may kula qabaan isa kulama qabaan hamaan maqalnay siduu u degdegay annagoo u fadhina geedkii islada diideen ciidana joogin meel magaalo oo baarraxo askartii dawladdu joogtan iska fadhina ciidamada saayibitay ilaa imikana ku qulqulaya maxay taasi tilmaamaysaa aragti kale ay keenaysaa nabadda qaadna inay hayda mid nabadda waa nabadda inay hayd siduu nin u hadlay loo yidhaahdo nabad haddaa qaadna waa sinaan lahayd oo dadka ka mid noqon lahayd laakiin nabadda wey dadkan waxaa u sheega waa nabadda looma isticmaala qaabka haddaan nabad ha u simannahay tahay aad baan uga xunnahay aad baan uga caraysannahay hawsheedina iyakaa ku kale ilaa hadday soo qulqulayaan dee waxaan u malaya dee baroorta origii ka weyna wax kalaa meesha jira oonan ogeyn oo intani dhaafsan hadday xukuumaddu kala dhexooda ciidankaana ka soo celinooda sidaa u wado dee waxay ka hesheed u gaarayaan horta iyadoona beeshani ku tashan beelahana ku tashan waxay ka hesha iyadaa jecel ha ka gaadho ha laga soo celiyaan leenahay ha lagana daayo haddayna ahayn doona tus la noola jeedo oo ciidamadii waxa laga caroodaa lagu sawira Hargeysa diyaarad Hargeysa ka kacdo Hargeysa dilaysa kaara dadka toona haddana waa la wadaa tii laga hadlayay in boorba laga bilaabo markayna ma gaadhin arrinta meesha laga tahay haddii laga dayn waayo ciddii waxaa gashay dawladdaa gashay anaan ku sheegaynaa siday u tala gashay iyadaa u socota allahumma ballaqtu bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad dhammaan waxaan salaamayaa salaadiintan beelaha Jibroonis iyo kuwa Samaroon ama dhammaan Somaliland intaa kadib horta kolley waxaana filinay baa nagu dhacay nasiib darro manaaynayna nagu maanta dadgaya waxa dawladdu nagula dhaqantay sababo badan oo laga soo hadlay dartood baanan u geyn waxaan si aragnay in waxaan anaguna qaadanaa wahaye wax la nala qaatay ama se la nala ogol yahay sidaa darteed markaan u baydha taladayda kale annagu waxaan ahayn beelaha dhaqanka beelaha Jibroonis waxaan ahayn dadkii suldaanka doortay wax kasta oo suldaanku waxa weeyaan oday dhaqameedkuna wax dagaalooga lagu sifeeyo ma wax dagaal faraha kula jiray oo galay cid cadaynaysaana ma jirto cidda warkaa tabisay ama dawladda waxaasi dawladdu nagaga yimid waxaasi waxa indhaha iyagu arkeen ama meesha ka jira midna ma talabaad Somaliland
hidda waxay u lahayd khilaafaad hadduu yimaad in cid walba cidda qusaysee la daa loo diro hadduu suldaanku wax tawday beelaha jibriilos iyaguna ay ku hargeysaba naga gaadhi kuwii samaroon ama agada buursiga halka joogo waar maxaa jira in la yidhaahdo xaq u lahaa hadday dhaaftay de inaan wixii la mid ahaa loo soo diray annagu oo isxilqaanay oo inana dirin cidi iyaan isdirnay suldaanka ayaan raadinay isagoo beelihii jibriil yoonis ee loo doortay ama samaroon isagoo dhex jooga waan la hadalnay wuu noo yimiday waxaan nimid ka kale warba dhinacaad joogto Ethiopia ka kale maxaa jiru yiri waar bal kale baan nidhiw waa dadkaagii waxaa dhex joogtay laakiin sakale waxaan keenay Soomaaliland dhexdeeda degmada Quljeed baan keenay haddayna Quljeed ka mid ahayn dhulka Soomaaliland de waa la noo sheegay nabadii annagu halkaa ku haynaa wixii dhacayna suldaanka ka warsanayna oo ganacsatadayadii uqaashii indheergaradkii taladii wasiirada intaaba annagoo u shira in halkaa fadhidiya in naga dambayso war naga sugaysaba waxaa la noo duldhigay ciidankii qaranka wixii aan wadnay iyo wixii aan filaynay ciidamadii qaranka ee dawladdu soo dirshay burburshay odaya ahaan annagu haddaan nahay odayaashii dhaqanka dhibaato badan baa nagu dhacday waa la nagu laayay waan ku dhaawacnay Soomaaliland waxaan ogeysiinaynaa in la nagu bilaabay waxaana hidiya caada Soomaaliland wahay oday dhaqameed baroon lagu weeraro oo isagu qorisida oday dhaqameed geed hoostii oo ku talnayo loogu tago lagu tunto caruur iyo xamasan waxba ogeyn oo la laayo oo wali haadara focuskii sidii u saarayeen beesha Quljeed ayay marnaba ayna kaadi tagin beesha Quljeed layra maanta wali haadara dadkii ma kaadi tagin dadkaygu ma kaadi tagin dibadda uma baxaan annagu haddaan nahay dadkii uu quseeyey arrinkaas dhammaantayaba culays baa la saaray waxaasina waxaan xaq u yeelanay maaha waxaan leenahay Soomaaliland waxaan uga fadhinaa hadday baarlamaanka tahay hadday madaxweynaha tahay hadday ku-xigeenka tahay haddii ciddii danaynaysa gobolkana tahay in xaqayagii la nasiiyo iyo wixii la nagu laayay ilaa magtayadii la bixiyana oo qaladka ciddii gashay la saxana waxaa liiya wax naga suurtagalaya ma jiro haddaan golaha dhaqanka jibriilosna waana ku raacsanahay suldaanku waxaa imika kolkii hore waxba kuma raacsanin ee maxaad intaan lahayd laakiinse waxaan ku raacsanahay maanta maadaama annagana la nagu tuntay caruurtaydii la laayay xildhibaanadayadii hana la xaq dhowrin wasiiradayadii hana la xaq dhowrin dumarkayga wali haddayna kaadi tagin waa la nagu kalifay waxaan ku raacsanay waxaa liiya wixii daraada uu yidhi أما هلا دونا ما هلا دلع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حلوانك إن قال جواب كلها برلمانك إيو سلطان فرح محمود نور إيو محمد نور علمي أركتها سوتي دي أنا وطوع كم ذي سنة حتى أنا كلها دخلك. وحن قدري لها ونتها الشيئين sidaa ay xukuumaddu u shaqaynaysaa sidii loo shaqayn jiray iyo sidii xukuumadeed maaha waxa wax ka baxsan wixii aan dhisanay ka baxsan wey sidaa darteed maadaama ay ka soo sheekeeyeen odayaasha iyo xildhibaanku dhibaatada dhacday iyo sida loogu gafay loo yaraystay golihii dhaqanka iyo suldaankoodii iyo ganacsatadoodii iyo wasiiradoodii iyo xildhibaanadoodii beesha loo yaraystay caado waxa u ahayd Soomaaliland siday odayaashu soo sheegeen in wixii xumaado loo diro golaha dhaqanka golaha guurtida ilaa Soomaaliland golihii samaroon looma sheegin iska daa Jibriil Yoonis oo lagu ixtiraamay golihii samaroon looma sheegin ilaa salaadiinta Soomaaliland ay ka quusato guurtidu timaado oo wixii lagama maarmaana marka dambe la isweydiiyo dee maanaad mudnayn waxay tahay muhiimaddu dee suldaanku waa la doortay waxa suldaanku hadlaya waa wax ummaddiisu ku hadasha annagaa dooranay waa suldaanka yagii wuxuu ku dhaqaaqay dee xaq baan u lahayn inaan la eegno aan arrinta
bal wixii aan soo ogaana xaq baanu lahay intiina loo diray iyo haddana ciidana lagu dul rogay shirqool cad baana lagu sameeyey sidaasi darteed dee mar haddiina la shirqoolay oon yacni ciddi faraheed aan ku baxnay hawshaa mas-uuliyaddeeda xukuumadda leh haba yaraatee waxna laga weydiin karo ma laha waxaan kaga baxaya mas-uuliyaddii aan qaadnay mar haddiina la dhabarjabiyey golihii dhaqankaa tihiin haddana xukuumaddu mar labaadna ma odhan karto allahuma salli calaa maxamed waxa weeyaan horta arrintu sidaa u dhacday odayaasha hore ayaa soo dhammaystiray waxaana qurux badan xaqiiqda in laga duulin waxaan leenahay maanta waxyaabaha halkaa ka dhacay waxaa wadda oo burburinaysa dawladdaa burburinaysa kuwa dawladda sheeganaya burburinaya waxa weeyaan mataqaanaa xaqiiqdu waxa ay tahay dawladdu dad intooy dirto inay haddana weerartaa waa nasiib darro dadkaa la kicinayaa dagaalamaa la leeyahay waayo meel una dagaal jirin dagaal lagama sheego shalay wixii dhacayna waa arrin uguba sidaa odayaasha hore baa u sheegeen waa arrin uguba waa arrin hanangeyn waa arrin maanahay goostay gobolka awdal suldaanku dhawaqa uu yidhi waa suldaankii jibriil yoonis waa suldaankii samaroon waa hormuudkoogii weeyaan haddii uu gaf sameeya amaaha wax sheegay xaq waxaa loo lahaa saa odayaasha hore u sheegeen in miiska wadahadalka ee dhaqanka ee mataqaanaa guurtida lagu wada hadlo laakiin ciidan ma geeyaan haddana waxaan leenahay haddaan la soo qaadin ciidamada halkaa jooga ee meel hay maraan la laayahay haddaan la soo qaadin wixii ka dhaca dawladda ka mas-uula dadka iyadaa laynaysa ma geeyaan gobolka awdalna wuxuu yahay waa la garanayaa laakiin weyn buu noqday wuu ka go-an yahay mataqaanaa ee somalilan xaq lama laha reer baa dhulka haysta reerkaay wuxuu yidhahda unbaa soconaysa reer walba uu leeyahay mataqaanaa wuxuu gaara oo reerna reer kuma dhaco waa arkayseen shalay habar yoonis iyo habar jeclo markay isqabteen in kolkiiba gurtida loo diray waa ka baarlamaanka iyo sinaay markay isqabteen gurtida markiiba loo diray iyagaa xalliyey maxaa keenay suldaan dhaqan oo wax yidhi in ciidan lagu weeraro dadkiisa la kiciyo la duldhigo dagaalama ayay dawladdu leedahay samaroonkuna waxyaabahaas doo ku kacay iyagaaba xaggooga xigay oo way ka socdeen waa laga wada socday hadduuse qaladga miiska warkan lagu wada hadlay ahayd waxaan leenahay shalay toole ganacsatadii waa la laayey odayaashadii waa la laayey sudaankaygii waa la dilay waa la dhabar jabiyey wasiiradii baa la laayey waa la soo diray shirqoolna waa la sameeyey taayna wax la geeya maaha wax la qaadi karana maaha war haddii dadku tafiir go-aayo dee qofku qofla uu dhimanaya saacadiisa unbuu dhimani caga jugleyna maanta ma shaqaynayso dembiga iniga dawladda iskale waxaan leeyahay hadalka waa la dhameeyey odayaashii hore iyo muqaashii iyo xildhibaanaduba way dhameeyey in yar waxaan ku daray waxaa jira soomaalidu dherigan karaya maxaa karka ka keenay waxaa ka keenay dab suldaanku hadduu hadlay wax ka keentay somalilan ka keentay wey hadduu hadlay oo uu yidhi waan goosanaynaa waxba kuma qabna haddii uu yidhi de waxay somalilan ka keentay wey wixii ay ka keentay unbuu ku hadlay maantan tii unbaa lasii wada waxaad xallisiin lama lihine dabkiibaa lasii ururinaya ninkii dabka sii huriyay horta wixii de uu ka helaya isagay jirta annagu haddaan dhaqankiina hawan suldaankiina 17 beelood oo dhiiga kala bixisaa doortay kan suldaan abubakar 17 beelood oo mid iyo iska dhiiga u bixisa yaa dooratay dee diyaar bay u yihiin intiiba diyaar bay u yihiin cidlo ma joogadee wax ciidan lagu weeraro aniga iyo lama muuqato waxaan leeyahay haddii wanaag loo jeedana wanaagu halkii oo ahaay odayadaa horeba sheegeen xallinta intii u lahayd hadday guurti tahay hadday odayaal tahay iyo intaba lahaydi ha ka taliso haddii afgembiga shalay la sameeyey ee inagu tagaanana ciidan baan naga soo daba diraynaa la yidhi loo jeedana allah ma ballaqto annagu waxaan ka nahay xagga ah dibadaan uga baxayna wixii laga helana dawladda ka dhameeyana waxaan sheegayaa xasan madrasa doona inaan la qabo sida gandahayagii iyo guddigii jibriil yoonis iyo odayaashu ay yidhaaheen hawshaa dhacday hadday hore u bilaabantayna dawlad noqnoqonaya meeshii dabaaltegii baa keenay inuu degdego uu suldaanku cadhado kelmadda ka soo baxday waa xidhkii ugu sarreeyey beelaha jibriil yoonis hormuudkii samaroonna wey
عيد كذا هلا يصير مدحوين وزير لو ما قدروا وأفكر ضد كانوا كهذا السودان كانوا دورتي وهي عاد كي جبريل يونس وتضبي يصدم بيلاد أو مكتب جورو كلا بعثات دور قارك أوفرديو ما كمان إيمان وعدد كيسيوي وعدد كلا دورتي وهي حاجة أي حاجة مو ولا دورتي وشنت قارو ده جبريل يونس ما دور ونكر على مسارتي رج أفر لود درو صدق لود درو شن لود درو سودان كريم معها أفريقيا وكوكا عينا ويدين برهاي من مدمين كاريال دق دي أبوك هذا عض بينهاي وده دكانة أبوه هاي جنا عروضي ما هاي وجوكم ما هاي دب دو بهاي وهذا نكري سودان وحتوضي واربحات دعم أفكي سنة دبركم كلكوين وإدنا مارو والبوطة بيل كلا قايسة حدو وحدن تيسل لجوايو ضدك واحد كير سينية وحي ككاني واربعة ككاني بهيدا عيد اللي يعمل جبلين هرب واللو قادم وهيدا اللي قادم ما يماطن والله بتدي ما شلون هو كله بيلها جبريل يونس أتكودي بكو هذي كوا سمرون بكو هذي عيد كديدن إيان اللي صاير كمان يوف عيسى ما إذا ما عرورت اللي قبل اللي جاب الجيل اللي وعد بولي هلا نوقف سوق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد هذا الكائن والله صور دميي والله يري أروح مثل يا توما قدري ماشي هو حاولت كدعي وح أنا الله في الدين بكدعي وعيبا كدعي واسد الله الشيء تضبي الصوت الأرضاء ومكتب جونو كلا بحياة سلطان كدورتي وسلطان كي جودة بيلها جبريل يونس سلطان كوا حويان مريكان بو سلطان وياي كوا جوجا إثيوبيا سلطان وياي جيبوتي بو سلطان وياي سومالي وين بو كوا جوجا سلطان وياي وحوي سلطان أي سومالي لان أفر بابور أما أفر عيدان ودرتو وكجا عبسيسو هرت معها ورنا سبتنا تاس وحول بنا ميسان كيسولي وحوي هالكا وحنو درنا دفور كجبريل يونس أنا ما راعين لكن أنت إيجا ويني إيجا مطني إيجا أدرني جنا ستة بانو درني وحنو درني صلاة أنت ويني وحنو درني عيد الله عدي أي وحكوا أيين أودا إيجا أدرني علماء بانو درني هل كل لو دور تيبو تشوكي دور كم تشرين ده سلطان جيد نمو هوس فدين هل كل لو دور تيش لبي أفرتن كأور لو قلي أيو تشوكي أقل كيسي وفديه أو لو قبلي ولو شو لديني تيجوا وده هذا الكيس صعدوا وكاعد بدل الطردقة شرقال بين أحيد جبريل يونس ولا لاي جابي صار إنسان دفور كيسي بالدلي وضيا شو دي باللاي كان حسيته دي باللاي هي جايس حلقة دولته وحوي إن يروا مال كهدلي أيه قدر تاجورت لبعتن جورتيا ملايين بيكون بحساب ده هل كان ملايين لما سين وضياش يجا يسحل قادو يري واربل سلطان كيني أنو تغني يجا عسته دودي وحوي أوبريشن كلا سمية يا وح الله وحنو قيمة يلا يا مكرني هدي وضلها شهر لك أن وضلنا هاي أيرون تهاي هدي وح وضياش هاي صور شيء كسور شيء كيني سومالي لا بورما لا كل شيء أيرون تهاي دولة وحن كربا هي حكومة السيرايو ما كتير رجال الله بهرت وضع هذا الختم بهاي نوت بي ما أنت ما تشوفته بل عن وضع هذا الله إيو بل عن واحد لا إسرائيل ما تشوفته هرت الرجال دين تاي بيجودي سيراي ستك دقة هيجو كان كل كان أو ما كتير رجال إيه كاننا ده وحي وضع هذا اللي تموه الله قال ستة هاي عشان نوفمبر ديسمبر وحارك الفردية كنتي دقنك باش جبريل يونس اسمرون انتي كجوتي وأول بنتي مجورتي أنا ركرو قضية الله فردي وحوي هذا ما المدوي ميديا مري أو شيء سلطان باش جبريل يونس جبريل يونس oo keenay xasaasiyad kaas oo ay odayadu gacanta ku hayeen balse loo gacan dhaafay sida muuqata markii ciidamo la soo dhoobay oo wadankiiba lagu soo qardiyay ciidanka qaranka sidii waxay soo gashay Israa'iil meesha soo gashay dadka laga gurmanayo iyo meesha loo gurmanayo ciidanka la garanayn ayaa ka dambeysay baan oran karaya arrinka caynka
waayo dadkan lagaga soo gurmaday Hargeysa iyo meel ka sheesay waa dadkii samaystay Somaliland waxa la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya waa dadkii u dul qaatay wixii dhibaato ahaa wixii kardara ahaa iyo wixii xumaan ahaa ee lagu sameeyo oo dhan iyagoo meydkooda iyo dhiigooda yaallo ogolaaday inay nabadgelyo raadiyaan oo geed dheer iyo geed baa u fuulaan min shirkii Burco ilaa kii u dambeeyay xukuumadda maanta taagan lagu soo dhisay sidaa darteed odayadu waxay ku jireen suldaanka iyo arrinkiisa sidii looga wada hadli lahaa arrinkaana loo soo afjiri lahaa suldaankuna xaq buu u leeyahay inuu u hadlo dhammaan beelaha Samaroon ama Gadabuursi waayo intaa oo jeer ayaa xukuumadda loo gudbiyey codsiyo iyo cabashooyin oo mid ka mid ah aan waxba laga soo qaadin hadday sidaa tahay suldaanku kacbadii buu gubin ee wuxuu yidhi waxaanu ka weynay maamuuskii iyo sharafkii iyo karaamadii quraan iyo xuquuqdii dalka ku lahayd waana runtii anoo xildhibaankiisii ayaa u marag furaya inay taasi run tahay waxaan ahay ciddii ku hadli lahayd dadkan magacooda golayaasha qaranka ama golaha ka tirsanaya baarlamaanka ka odhan lahayd iyo ka xukuumaddana geyn lahayd laakiin waxaa muuqatay muddada 20 sannadood ka badan ee ruuc qarniga inay adkaysanayeen dadkaasi way u dul qaadanayeen jamhuuriyadda Soomaaliland koritaankeeda iyo kobcinteeda ilaa ay ka qaangaadhay 2-3 sannadood baa ka soo wareegay markii la lahaa wiilkii maalintii la aasaasay dhashay iyo jaamacadda ka qalin jabiyey hadduu kii maalintaa dhashay jaamacadda ka qalin jabiyey waxaa la yaab leh waxay u dhiiqi laadahay waxba ee looga waayay waxba ugu yaraan maamuus oo loo sii waayay beeshu waxa ay mudan tahay at least ixtiraam waa markii ugu horreysay ee ciidan iska yaacaya arrin aan farahaba ka bixin weli meel lagu soo weeraro golo qaran baa jira oo ka shaqeeya khilaafaadka caynkaas oo kala oo baarlamaanka soo golaha guurtida qof guurtiya iyadoon la soo dirin qof xukuumadda ka socda oo arrinka soo ogaada xogtiisa iyadoon la soo dirin yaa ciidan la iska soo dhoobay marka xukuumaddu ma waxay rabtaa inay iyadu abuurto dhibaato mise waxay rabtaa maslaxadda iyadaa sheeganaysa tay rabto laakiin halkan waxaa ka caddaynayna in odayadu arrinkaa gacanta ku hayaan gefna lagu sameeyey iminkana iyagana